warbaahinta caalamka ayaa tabinaysa sababaha keenay in Bakistan ay mamnuucdo khudbadaha tooska ah ee laga baahiyo telefishinada dalkaasi Bakistan ee uu jeediyo Imran Khan, ra'iisul wasaarihii hore waddankaasi. dowladda Bakistan ayaa mamnuucday in si toos ah loo tabiyo khudbadaha ra'iisul wasaarihii hore dalka Bakistan Imran Khan, iyaga oo u soo jeeday eedo la xiriira in hadaladiisu ay abuurayaan nacayb bulshada dhexdeeda iyo kicin dadweyne oo ka dhana xukuumadda dalkaasi ka arrimisa. hase haatee tallaabadaasi si weyn ayaa loo dhaleeceeyey, waxaana lagu tilmaamay inay tahay siyaasad ku dhisan cadaadisa. Imran Khan oo 70 jir ah ayaa si joogto ah khudbado ugu jeediya kumanaan qof oo isugu soo baxa barxadda waaweyn ee dalkaasi Bakistan, kuwaasi oo ka soo horjeeda xisbiga ka arrimiya dalka Bakistan ee BTL, kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu xilka ka tuuray Imran Khan bishii Abriil ee sanadkan. kadib markii Imran Khan dadweyne tiro badan la hadlay maalintii Sabtida ahayd, ayaa xukuumadda dalka Bakistan gaar ahaan hay-adda maamusha warbaahinta dhinaca internetka ee Bemra waxay amar ay ku bixisay inaan telefishinada dalkaasi aanan baahin karin khudbadaha tooska ah wixii maanta ka dambeeya. hase haatee waxaa la ogolaaday in la sii daayo khudbadihiisii uu hore u jeediyey ee la duubay. hay-adda maamusha warbaahinta ee Burma ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in hogaamiyaha mucaaradka inuu sare u qaaday eedeymo aan sal iyo raadba toona lahayn oo uu ku faafinayo bulshada, taas oo keenaysa nacayb iyo kicin dadweyne oo ka dhana dowladda iyo saraakiisha xukuumadda waddankaasi Bakistan. hadalkan ayaa jawaab u ahaa go-aankii Imran Khan ee Sabtidii ee ahaa inuu dacwad ku soo oogi doono saraakiil sarsare ee booliska iyo garsoore dumar ah oo lagu eedeeyay doorkii ay ku lahaayeen isjijiidkii loo geystay mid ka mid ah gacanyareyaashii Imran Khan ee la xiray. hase haatee eedaasi waxaa beeniyey wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Bakistan.